kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa warar xiiso leh oo naga soo gaaray dhanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sare iyo guud ahaan Geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah deegaanka Soomaalida oo Itoobiya sheegtay in kooxa argagixisa ay ku nool yihiin taasi oo kulankii dhawaan aan ilaahay golaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida loogu yeeray magaalada Addis Ababa ay wax badan u soo akhriyeen iyagoo sheegay in Gafaydhe uu ka talaabo qaado gabi ahaanba kooxaha ku sugan deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweynaha deegaanka Oromiya oo sheegay in uu 30,000 uu daafuray kuwaasi oo ciidamo gaar u ah deegaanka Oromiya wuxuuna sheegay in ay isaga difaaci doonaan wax uu ku tilmaamay cadawga Oromiya dhanka kale guusha faano oo ah mid lama filaan ku noqotay dowladda federaalka Itoobiya iyo kumanaan kun oo kamid ah dadka shacabka iyo waliba dhalinyarada oo ku biiray xooga faano guushan ayaa waxa sidoo kale qadadhigaya wadamada reer galbeedka iyo warbaahintooda iyagoo sheegay in bisha soo socota gabi ahaanba ay ka takhalusi doonaan rajiimka waxay ugu yeedheen fadhiya magaalada Addis Ababa xaaladda Soomaaliyana waxyaabihii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal ku qadadhigi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaa ka maqnaan doonin ciyaaraha ka socda dowlad deegaanka Soomaalida oo inta badan dhalinyaradu ay naga soo weydiiyeen qaabkaan u aragno iyo waliba waxyaabaha ka socda aan ilaahay ciyaaraha ka socda dowlad deegaanka Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qadadhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijkeena qadadhigi doona saaxiibkay Dr. Shide oo asagu inta badan ka faalooday xaaladii ugu dambeeyay ee guud ahaanba dalka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba Geeska Afrika ugu horeyn aan ku bilowno dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale waxa la tilmaamayaa madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida inuu u shiraacan doono goordhow aan ilaahay Sacuudi Carabiya si uu xajka uga soo xajiyo sanadkan hadaba barnaamijka sii shargaraya saaxiibadiina la wadaaga si uu meel fog u gaaro like tay subscribe tana ka ilaa wala bal soo dhaw Dr. Shide waa dhaw saaxiibada Itoobiya sidan xogta ku helay waxa la yiri Gafaydhe ninkii Mustafa waxa lagu weydiinay ninka faraha ka qaad xoogag argagixisa ku nool baa la yiri dowlad deegaanka Soomaalida waa bariga dhawto markii golaha amniga Adsaba looga yeeray xogtaasi in kooxo argagixisa ay ku nool yihiin dowlad deegaanka Soomaalida maxay ka dhigantay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cornel Forogodow Jigjiga way karkaraysaa horta Jigjiga xaaladeedu ma sahlana waxaad moodaa Jigjiga wajiyo mudaba ku naaloonay ama ku raaxaysanay ama dana gaar ah ku fushanay inuu hadda waagu ku bariyay ayaan moodaa ninkii Gafaydhe ah oon ognahay nin ay soo carbiyeen TPLF nin darajada laga soo bilaabo dable ilaa shaaliqe ilaa aad darajooyin hadda waasta ilaa Cornel inkastoo aan ma lacag jarno Cornelnimada siiyay laakiin de waa nin ah maleeshiyadkii ugu horeeyay deegaanka Soomaalida oo geel jira ka soo bilaabay soo geel raaca bismillah arag raac jirmadan mar baa la sheegay xogta la soo gudbiyay ninkii halka ka soo kusoo qaangaaday adoo aan TPLF dhaho ilan TPLF waa sax ninka roo qaal dhagax buu arig ku raaci jiray wuxuu doorama ha ahaadee laakiin barnaamijka Gafaydhaha waa tii aad soo tagay hay barnaamijka isdhax fadhiya Itoobiya sheegtaba Itoobiya isdhax fadhiya dadku aanu sharaxano horta deegaanka Soomaalida waayad ugu dambeysay dowladda Itoobiya tuun bay ka qabtay inagu dadku oo sheegeen inay intii isbedel u dhacay ay soo la soo galay deegaanka baashuna isdhax fadhido waa sheegaynay hay'adaha amniga deegaanka Soomaaliduna waxay dulmanayaan u ahayn maamulka deegaanka Soomaalida oo Mustafa hogaamiyo ayaa ka hortaagnaa in deegaanka sidii loo difaaci jiray iyo sidii loo kala saari jiray dadka khaldan iyo dadka saxan iyo dadka muwaadinkan Mustafa muddo inuu dadka u hagaardaamin jiray baash markii isdhax fadhisatay markii isdhax Jigjiga waxba laga qaban waayay Jigjiga maarta oo kuleeyay hay'adaha amnigu guri baan weeraray waxaan ka soo bixinay waxyaabaha qarax iska daa xuduudaha meena dadku ku dhiiran garin in ayagu la galin ama aan intaas oo saxiix laga haynin iyo dadka damaanad qaadka iyo meesha ay ku soo aadmuun ka soo gali jirin hatta caasimadii deegaanka ayaa lagu leeyahay hay'adaha amnigu xog bay heleen sirdoon guriga u dhacay waxyaabo qarax ka soo saareen Jigjiga halkaas ay gaadhay meesha ay baasho isdhax fadhiisatay halka markay gaadhay Mustafa Maxamed Umar yana mas'uuliyadda ah inuu ciidamada shaqadooda inay gutaan ayaa si weyn uga hortaagnaa hawshii way isla karkartay sirdoonka Itoobiya xoog badan bay fashiliyeen oo Jigjiga gudaheeda way dhayaan baasho dhiiqay dhax fadhidaa bay dhaheen arintaas markay dhacay maxaa dhacay
hogaanka nabadgelyada oo ognahay nin aan shaqo fiican oo dawladeed aan aad u soo marin oo nin iska macallin ahaa oo qorigiisa hogaan nabadgelyo waxa looga dhigtay hogaanka nabadgelyada asagoo rag kale lagu cabsi gelinayo oo rag kale booska lagaga riixanayo ayaa loo keenay qorigiisu gafaydhana meesha maamulay gafaydhe ayaa ku amar taagleynayay gafaydhii meesha xukumay iyo hogaanka nabadgelyadaba waa kii la qaaday waa kii aad sabab la geeyay samanar waxa la furay hogaamiyaasha amniga ee dalka Itoobiya dawlad deegaanada dalka Itoobiya dhamaantood ayaa la furay gafaydho usbuuc ku dhaway halkaas iyo fadhiyeen hogaanka nabadgelyadaba oo ishidunayeen ishaab ishi oo loo akhrinayay oo la dhahay waa inaad historigii hore in la baray iyo la dagaalanka argagixisada xididda usiibka ee ma artay dhan u socodka gees socodka Itoobiyan diidka waa inaad qabataan balalaha gafaydho waa kii soo laabtay Mustafa Cagjar buu yimid Mustafa wuxuu ku yiri waxaan rabaa seefta galka inaan kala baxo dadka inaan seefta la dulmaraan rabaa yiri jijeen loo kala cararaan rabaa yiri jijeen inay noqoto baash waqti abdi ay haajirtay wax xabsi ku jira iyo wax guriga ku gabada iyo wax aabada hayo oo shaqada dawladda fulinaya inaan ka dhigan rabaa yiri Cagjar asoo halkaas maalkaas ku dhaceen dhowr bari bay haysteen saddex bari yay haysteen waa la soo dhaxgalay yaa soo dhaxgalay hay'adaha amniga heer federaal ba soo dhaxgalay waxa la yiri faraha ka qaad ninkaas Cagjar Cagjar dadku ku celcelinayo hadda wararkeen hore waxaan ku sheegnay su'aal hada marka Cagjar dadka uu ka celcelinayay ninkaas ma fahantay Cagjar waa uu ka celcelinayay ninka gafaydhaha muddo dheer dadka celcelinayay Cagjar waxa lagu yiri ninkaasi faraha ka qaad ninkaasi faraha ka qaad ayaa lagu yiri ma fahantay faraha ka qaad ayaa lagu yiri gafaydhaha kiisada gal kala bax yuu ka bilaabay dadka masaakiinta dadkii ma arkaay xoogsatada ahaa dadkii siyaasadda dawladda ka soo horjeeday ayuu ka bilaabay waad ogeed ninkii Abdi Baarud markii gaariga la wareegay baxsay xagee gaaray Abdi Baarud wuxuu ka soo hadlay Facebook dhexdiisa yuu ka soo hadlay saacadan jaari cirib meel u dhigay lama sheegin inuu diyaartiisa rabaa inuu diyaarada dhexdeeda ka soo hadlay wuxuu yiri iniga tagay meesha doontaan la aada oo Abdi Baarud markaa baad u shaqeynaysid dad baa waxay leeyihiin markuu Cagjar yimid rag horgooda iyo Cagjar la aabakan gabadh buu ku soo aabakan waxaan u sameeyay aabakan maalin buu dhirbaxay aaba sidan buu sameeyay dhaqaalihi xataa waxa afku dhigtay baa lahaa dadkii jeelowada ku soo waxyeeloobay guddigii kamid ahaa baa la yiri loo xilsaaray dib u kabka iyo kamid ahaa Abdi Baarud si kasta taa wala soo caarma laakiin hadda ay baasho markii la yiri markii nimanka hogaanka nimanka mugta xarka laga furay booliska markii xarka laga furay la yiri lama hor istaagi karo Cagjar oo nimankan aad celcelinaysa faraha ka qaad rag badan baa tagi dadku waxa uu hadda tagay hadda kala carar iyo nin walba meesha qaban lahaa ayuu ka fikiraya ragii intay dibadda ka yimaadeen Mareykanka ka yimid Afrika ka yimid sug ninka lagu magacaabo shido sug baasha waan kala saarayna waxaanu mar rabna dhoobo walaqan iska noqdo meeda gafaydhan ka hadlayna gafaydha seefta gol kala baxay barnaamijka Itoobiya ay tiri hadii bay ku soo ogol yahay way saddex fadhida yaa rabana ka hadalo mid Itoobiya ma ku saxanta mise kuma saxana Itoobiya mid way ku saxanta waan gartay gafaydha mid ma ku saxaya mise kuma saxana mid uu ku saxaya midna kuma saxana waan gartay baasha ku kala qaaday gafaydhe dabal xumada xiriqu ka bilaabay dabal xumada xiriqu ka bilaabay meeshu ka bilaabay gana iyo meeshii Itoobiya kala hadashayna ma aha ninkan wuxuu ka bilaabay Abdi Baarud iyo maxaan ku dhahay hanjabaada mid yaro buurgaaba la yiraahdo iyo mid kale wasiir waxa soo ka bilaabay ciyaalkii magaalada wali deegan meel u dhaafay kuwaas uu ku khaldan yahay gafaydha inuu ka bilaabo kuwaas yuu ka bilaabay kuwa Itoobiya u soo dirtay ma aha waan gartay kuwa Itoobiya u soo dirtay Abdi Baarud baan cayrsanaya buurgaaba wax ka sheegi waxaas ma aha ninka loo soo diray waxa ma aha waan gartay waxa Itoobiya ay leedahay saddex fadhida waa runta Itoobiya saddex fadhida deegaanka saddex fadhida baash saddex fadhida ayadii kooxaha ila wixii hadii isku fikir yihiin waa la mid ma garan ayadoo maleeqande kooxihii ka dhurdurdin jiray koonfurta Soomaaliya oo madhabkoodii iyo wixigoodii aaminsan baa dhex fadhiya deegaanka meel walba madrasa ka sameeyeen tuulo walba madrasa ka sameeyeen meel walba way iyaga dhex taagan ama aqoon wadaan aqoonta ma taqraxa ayay ma muqdisho gaarsiiyaan aqoon qarax lahayn ma jirto aqoon aan qarax lahayn ay wadaan
hay miday wadaan waan gartay waa aqoon iyo qaraxi iyo wixii baa wada socda isla rakiban wixii baa isla rakiban hay waxaan marka yaa u sahlay waxa u sahlay sidee tanaam maxay magaci tadaamun baa la dhahaa tadaamun adu ma kartid moogta tadaamunka oo ugu cusbiyay moogta ha hay tadaamunku waa nimanka dawladda haysta way waan gartay waa nimanka dawladda ilaa anaga nooma dhuuman karaa moogta waa naqaanaa hay tadaamunku bidaaya waxa weeyaan ka weyn Mustafa ah ee walaalkii ka weyn ba ah hay ee Maxamed la dhaho hay kuwa ka yar ba ah hay waxaan ina kii ahaa maxaan kan xataa wasiirka ee lagu leeyahay magaciisiga Duraa ina hore ayaga laftiisa way tadaamunka waa tadaamunka ha hay Maxamed baan u sheegaynaa kii wasiirka hore madaxtooyada shareecada kii hadda wasiirka biyaha kare faafaneedka hadda magaciisa odayga taade kii ma taade asoo taxaad hore ahaan jiray hay laakiin hadda way iska agdhow yihiin taxaadka iyo tadaamunku waa saaxiibo sibay maartay saaxiibo u yihiin isku dhanbay u socdaan taade asoo ku soo dhaawacmay baday taxaadku ku soo dhaawacmay taxaadka hore uu kamid ahaa duurku ku jirayba halgamaay bawdihi soo idil baasha baa riftay marka nimankan maadaama dawladda ku jiraan isku madhabna yihiin bahasha yaryareed ee afka xiran jirtay yaa soo gashay sida ahayd buu soo gashay Ethiopia sarar way ogtahay hay marka meeshu fashilka ka jira waxa weeye markay kuwanu ay qabtaan yaa u sahlay waxa u sahlay kuwan dawladda ku jira u sahlay marka sidaas u diidan yihiin in la soo dhaxgalo ilaa ayaga kuma qaat furi hay hadda kor waxaan sheegnay laba nin oo mid baaban ma garanaysaa deegaanka caanka oo la garanaya laakiin waan ka gaabsanayna markii soo sheegamayno waxa jirtay laba nin oo caan dawladda ka weligoodba meel u dhaafay oo iyadoo maleeqana dugsiyo quraan meesha ku hayay jijigi aagaarkeeda dugsiyo ka fureen oo ninka waxa la arkay lacagta sac ugu socoto kuwa bahashi oo maleeqana haydo koonfur ka imaatay ah oo soo dawladdu la socotay Ethiopia sare la socotay yaa hargeysa soo maray laguma yaacay dhageyso hargeysa soo mareen oo wajaale meel ka soo gudbeen iyo ninkii soo wacay siglaftiisi soo wacay markay soo waceen ba waxa weeye nimanka waa la kacay telefoonadooda baa laga qaaday ninkii baa la wacay waxa joogtaa jijigaan joogaa oo xageed waxa tahay macallin baan oo xagga wajaqjuusha mise waa hada ragga ugu caansanaa jijigada waa ayadiiba kuwii iyadoo maleeqan bayna ku soo dhaweynaya magaalada jijiga oo xiriir bay leeyihiin oo waa kuwan dugsiyada quraanka furay ee masaajid asootaan ku leeyahay maahay 2 sano kahor 3 sano kahor bay siday u hadli jireen kuwii kooxii koonfurta ka dhudhudhoon jiray oo maleeqan oo waxaan arkay masaajid ka khudbaynaya masaajid khudba ka soo jeedinaya saanawriya wartan war Mustafa Fiiri warkan haddaan laga qaban wala iyo bil deegaanka haddaan laga qaban bahashi oo qarqarxaysa ya mar dhow la arko malmalay wala arkay marka baasha waxa weeyaan dawladdu hal way ku saxan tahay oo nimankaasi afkaarta guracan wata in deegaanka gacan bira lagu qabto waa sax way way ku saxan tahay Ethiopia meesha uma baahna qarax iyo madhab guracan iyo uma baahna dadkeeda loo daayay dawlad deegaanka uma baahna dawlad deegaanka culumay lahaan jiray culumadu dadka diinta gaarsiiyo way dadka sideedaba waa dadkii diinta gaar halkan sideedaba Soomaalida markii waqti Soomaalida waxyaabo qolob waxbay caan ku tahay qolob waxbay caan ku tahay qolob maxaan ku dhahay waxay ka ganacsan jireen ilaa iyo 700 sano bay ganacsi ku soo jireen oo ilaa Carabaha iyo ka shaqeysan jireen sida Puntland iyo maxaan ku dhahaa iyo Somaliland iyo qolana waxa weeyaan 700 sano ay garanaysaa wadaada ahaayeen oo tafsiirka iyo quraanka iyo xadiis iyo mandaqa iyo balaaqadii wax walba akhrin jireen marka meeshana waa manbaci diinta ee meel ma aha qarax iyo diin hadda diin cusub loo soo dhoofinaya ma aha Soomaalida inay faantaan rabnaa Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida waxay tabcadaan waa diin bay ahayd inta abdi ilay uu joogay ayay nijaaseeyeen manbaci diinta islaamka meesha u ahayd sideedaba waan gartay soo gartay ma kuwa waxaan garanayaa hadda ka hor intuu saacad dilay meesha wasaqayneen waxay ka tageen xalaqaadkii masaajidka wax ku barteen waxay tageen Carabaha imtixaan baa laga qaado jaamacad bay rabaan idinkaaba jaamacad guuraysa lagu yiri idinkaaba jaamacad guuraysa soo gartay ma kuwii jaamacadda macallimiin marka waxaan ka wadaa meeshani sideedaba waxay dhaqan jirtay
xoolo kale mayna haysanin oo farbadane markii xoolo dhaqatada laga reebay hanti farbadan oo sida dadka maxaan ku dhahay dekadaha ay ku faran mayna haysanin laakiin meesha waxay ahayd manbaci diinta islaamka ahayd geeska Afrika laga fidin jiray marka kooxahan maxaan ku dhahay yar ka ah kutubta yarga isqarxinta ah wada ee dawladuna dhanka ay kala tahay maxaan ku dhahay madhabka iyo fikirka kala yihiin wax la aqbal kara ma marka Ethiopia nidaamka abiye garwal oo islaana in kooxahan xididada loo siibo waa sax laakiin sida xididada loogu siibo ina dhageystaan waxa loogu siibi Mustafa in arrinta laga hadlo faraha ka qaadana hay'adaha bixiyeen nimankaas Mustafa asagu tadaamuna ma itixaadna ma fiyaasoo ashaaciri iyo qoladii baab suufigana ma kitaab gaabniya shiicana ma qoladii kolba meesha imaata iskala tukada asagu kolba qoladii imaata iskala tukada laakiin Mustafa waa tadaam bal ma abi tadaam ma soo gad xogtaas anaga soo gaarnay Mustafa asagu kolba qoladii ma garanaysaa imaam noqonaysa iskala noqda واسك سياسي قلالان وي شنطة سنوات سيدي لو تكودنا مصطفى و يقانا iyo sakada hadii xoolo yeesho sidii sakada looga bixinta uu garanaya Mustafa laakiin Mustafa yaa ku jeediya waxan yaa ku jeediya taliyash may waxa ku jeediya walaalkii uu ka weyn ba horta qaybtan tadaamuka ah oo ninka uu hantida badan qandaraasyada qaata kuwa ku xeeran iyo qoladan shariicada islaamka ayagoo wada maleeqan ah وكو habsaday marka dawladii oo idil ba waxay tahay wada tadaamun ah dawladii oo idil ba qayb waxay tahay itixaad ah marka itixaadkii waxay u sheegaan ay dhahan waxan waa xaraan waxan waa kan waxa Mustafa waa kan sidoo loogu hayay iyo xulba ka carro ayagiiba u galay ajigu arsilo kan waa xaraan loo ha marka Mustafa wuxuu rabaa in dawladdu ay dhahdo Mustafa nimanka dhanaa ka naqaan madhabkoodii waxooda anaa ka naqaan banaanka ka fariiso هذا حقلين نمان كان أرجع نمان كان مرتجلي ونمان كان تضامك سيد هذا وانجر نيا مرتجلي وتضام وكان أقول هذا كان أقول شيء دولة وإقامتها هل سنة لا هل سنة يا لا هل سنة لا من نقرح بكسر كذا منا قبل كلو كسر كذا دولو هل سنة لا بدنا لا وانجرت ولي قلت لك كمان راح لكن يا وانا منك بعهدك مع ماشي اللي يراده حريها قحوتيga ee sheedheer iyo kuwa qaxootiga ku yaala ee dhamaan waxay ka wada furteen bahalkii wana meelaha kooxaha ka faa'iideystaan mugta wana meelaha ka faa'iideystaan marka sideedaba dawladda Mustafa in ayada laga bilaabo way lafteeda laga bilaabo ilmaha xaafadaha la marka abdi baarud iyo buur gaabi iyo kan kale khadar wasiirka ciyaaraha ahaan jiray waxaas waa ku khaldan yahay gafaydhe meel aan meesha lahayn ka bilaabo waa inuu gafaydhe ka bilaabo ragga wasiirada iyo wasiir ku xigeenada ee baash loo wada yeero la wareysto oo la dhaho asalkaaga muxuu ah xageed ka imaad loo xaaga hor xageed ka soo lex joogto horta ma loox baad wax ku soo bartay mise buug baa lagu soo xariiqay in la dhahay u baahan yahay horta waan gartay soo wax gartay ma halka way horta meesha sartu ka qurunsan tahay deegaanka Soomaaliya haday sidan ku socotana meel fog balagada yar kiba inta dhex fadhiistaan yey loo xal wayda nig tamar u wad ka maqan hooyaba marta ka dhig meeshan waa Ethiopia way iskiin raacin باي Ethiopia de boy leen hadi Ethiopia Soomaaliya andayano way soo Ethiopia Soomaaliya andayano baladihum Soomaaliya kan wax qarxiye kan wax diriye kan maxay galeen waa isku mid Soomaaliya ha marka anaga waxaan leenahay dawladda u sahlaysi dawladda waa in hay'adaha farta loogu fiiqo oo new police kala dhaho adar dhalinyarada cayrsanayna kuwan lacagaha ka dhargay tuugada ah wasiirada ka bilaaba wasiirada kuwaas way ku argagixisada ku argagixisada ee hoos soo gashanay ee la madhabka ee la aqeedada kuwaas way ee qarxa iyo balaayada iyo futada ku wata waan gartay kuwaas horta waa intaas marka barnaamijka dhansaarkan ku yar diidanay halkaas weeye meesha ay waan si toos safarta loogu fiqay safarta loogu fiqay halkaas weeye barnaamijku ee ma aha maxaan ku dhahay Abdi Baarud iyo Buur Gaabi iyo waxa ma dhaha dhalinyarada magaalada ku soo badnaa ma xaafadka ma siin uu ka bilaabo ma waa taad inuu ka bilaabo weeye taad laftiisu ka bilaabo way taad biyo galin uma joogay wax kale uu jooga hawlo kale uu jooga taad wasiir biyo ma ha ka yaab waan gartay kuwa kale shariicada islaamka jooga jeejega jooga wax kale ayagu u joogan kuwa madrasooyinka maxaan ku dhahay argagixisada meesha kooxi ka dhudurudeenay u furhaya waa ayaga marka baasha waxa weeyaan meesha waa inuu aado ka faydhe runta Ilaahay baa nagu jecel
qodobadii maxay nooga hadhay marka qodobadii waxaan tagaynaa deegaanka axmaarada nimankii faanada way hadleen waxay sheegeen shacabka axmaaradu inay dhagahoodii maqleen inay fikrad waxay usoo jeediyeen ay qaateen abiy axmedna uu ku daahin kursiga inay ka takhalusayaan una diyaarsan yihiin xukunka dalka Itoobiya la wareegaan maxaa la soo bandhigay 1 milyan oo askar la soo bandhigay waa karta oo 16 jirka 60 jirka 80 jirka u dhaxlooday 80 jir maarta qori la looday axmaara oo kale inaan abiy ku dulbaqtay raba ku dulbaqtay ayaa raba marka hadda Itoobiya waxay leedahay kooxdii abiy waxay leeyihiin axmaara waa in laga soo gaaro haddii kaleet Itoobiya hooyo abay marta ay ka dhacayso sawir Itoobiya abay marta waxaa la leeyahay qolo walba istifaac qolo walba oo Itoobiya joogta hay istifaac in axmaara deegaanka soo gal abiy wuxuu ka bilaabay axmaara meesha kaliya ku habsanayso waa Oromo waa meesha ku habsanayso sababtoo meesha taageedku yahay ama meesha loo socdo waa Addis Ababa meesha lagu hardamay canjaradu ka bisashay waa Addis Ababa deegaanadii kale dhan way ka soo qalashay deegaanadii kale dhan way ka soo qalashay abiy muxuu yiri marka Oromo yar iyo weyn deegaankina difaacay haday axmaara diido in la wada shaqeeyo haday Tigray diideen in la wada shaqeeyo waxaan idin sheegayaa kursiga haduu aniga gacantayda ka baxo inaan la soo gaarno Oromiyo oo xuduudeeda xidhatay inay noqoto oo lagu kala tago meeshan aan dib la isku soo noqon axmaara xogta weesh abiy inuu halka ka bilaabay ayaguna go'aan waxay u gaareen meesha doona ka dhacday Oromo ama Addis Ababa ka qaxdo ama had difaacato mar in faraha la saaray waxa arkay sargaal sare oo faanada u hadlayay meesha ciidamadu qalin jabin u la joogay oo axmaarada barnaamij axmaari waqti aad ay fiicnaan jireen inkastoo aanu waa dhowjo badalftooda yar lix jiidatay ma yar lix jiitay garta ma fahamtay meesha marka wuxuu leeyahay ninkaasi wuxuu yiri ana abiy la soo shaqeeyay garta abiy ana la soo shaqeeyay yiri xafiiskii ra'iisul wasaaraha ayaa ka shaqeyn jiray yiri taliskii madaxtooyadan ha yiri go'aan waxaan qaadanay dalka inuu isbedel ka dhaco ama shirweyne qaran la qabto ama ayaa la qabanin laakiin waxaan u sheegaynaa abiy inaan Addis Ababa isku wareysan doono bartamada faras magaala inaan isku arkayno waa gartay wuxuu sheegay madaxweynaha deegaanka Oromiya Addis Shims asagana wuxuu sheegay Shims Addis asna wuxuu furay guutooyin ciidamo ah ayuu furay aad tiro badan baad 40 kun gaaraya ayuu furay oo dharkii tababarka loo wada xiray say tababar u qaataan wuxuu yiri Addis wuxuu yiri Oromo fursad bay haysataa Oromo fariin dheer borto ninkaas u diray oo hoggaanka inuu hoggaanyahay u arkaa Oromo ninkaas wax weyn u qabtay ayaan u jeedaa Oromo wuxuu yiri horta waa in ayna Itoobiya inaga dambeysay ayna jirin oo dhulkiina qabsatay waa in axmaar dambe iyo Tigray dambe iyo dhabuub dambe una deegaankiina soo gali waa koow Oromo intay xilka haysato waa inay dhul heshaa waxay ku heli cudud ciidan bay dhul keli kartaa Soomaaliland dhul baa laga qaadayaa afarada iyadoo walaalada axmaaraan dhul baa laga qaadayaa wuxuu yiri Oromiya hadii la wada noolaan waayo waa inay noqoto dalka ugu weyn ee Itoobiya ka go'ay ugu dhaqaalaha badan dekad leh wax soo saar iyo shidaal iyo wax walba leh waa inay noqoto biri dhalinyaradii nambaana hawsha looga fadhiyaa biri Oromo way ka aqbashay oo wal aad meesha tababar wada aydan muuqaalay baahinaysa dawladda deegaanka Oromiya ayay baahinaysa dawladda federaalku aydan ciidankii Oromada hubinaysa Itoobiya farogooda meesha waa lagu kala tagay inagu ba meel aad durbaan tumayn oo mudane Addis Ababa inay dawladda Soomaaliya balay kooxay oo Addis Ababa in lagu khudbadayn oo amarna laga siinay sida hadda gafayda amarka loo soo siiyo kale laakiin Itoobiya kala amar la isma siiyo way laba qodob baa inoo hadhay mid waxa weeyaan waa ciyaarihii dawladda deegaanka Soomaalida oo dhalinyaradu inta badan commentiga noogu soo qareen maad ka soo hadashaan iyo qabyaalada ay abuurayaan dhalinyaradaasi iyo qiimaha ciyaartooyda la soo gadanayo lagu kala iibsanayo waa qodob xiiso leh oo waliba xogo idin ka hayno laakiin bal waxaan kugu daray maanta waxa yimid guddiga Olombikada Itoobiya ugu sareeyay ayaa ka soo qayb galay marka waxay deegaanka Soomaalida ciyaaraha ka socda xiisad gaar ah geeska Afrika uga sheeday Soomaalida waxay wada leeyihiin Washington ma ka daawanaya London ma ka daawanaya ciyaartii wax kale noqotay marka waxaan rabaa hadii bay ku soo ogol yahay intayna bal qodobka dul istaagin fariixada safaarada Jarmalku uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee dawladda uu hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ay soo bandhigtay maxay fariixadaas fariixadaasi waa mid la yaab leh waana la sugayay sababtoo ah dawlad ku dhisantay saaxiibada la tahay
waabaan canjeero qalal meel ka soo wada cunay dawlad lagu dhisay dawlad ma noqoto dawlad la'aan baa dhantay waa dawladda xasan maxamed hogaamiyo safaaradii Faransiiska ma Jarmalka ee Nairobi joogtay waxay soo saartay listi dheer rag sida wax loo cuno bas hayaqaan laakiin aan waxba qori karin oo dalka Soomaaliya ku habsaday ayay soo bandhigtay waana si weyn kuwa aabayaashooda ugu weyn ayagana inay soo bandhigto shahaadooyinkii ay dadka ku khaldeen inay ayagana soo bandhigaan waan rajaynaynaa waxay dhan wasiirka gaashaandhiga aadan madow wasiirka gaashaandhiga waa ninkii TikTok wasiirka arrimaha dibadda waafiqi aadan madow gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka caafimaadka gudoomiyaha gobolka Banaadir dhamaantood weligood ABCD looga dhigay waxay imanayaan ayagoo dhaxda ka xiran oo suudka uu qaalisanaa qaba waxay rabaa safaaradda inay barnaamij kala hadlaan dhaxda soo xiran ku soo fadhiisan how ayuu markii la dhaho indhaha bacday bidha how ayuu hadii la dhaho geesaha mu fiirin waa jawaab markii la dhaho I am قبلها بالي. هواش بركان قاعد ترجمانان وكان يدين. وديدي. ترجمان سومالي أنكوسين وكود ترجمة برنامج كذا إني كأنا كوا هذا الله. لك حقول هو سومالي حب بيجود بين. أنا I هي حب ماشي جود. ما يحب ما. وحيلا سفرت وحيلا ده. وحاخته بالله كتير حجر كسومالي أنا لهين. وأنا ما أحمد قرأت أيضا كوب سدين. ولبا قيمة القرآن كوجودا بيا سفارة دقف والبو يعني برنامج كرتو وقال كرا وسفارة وقال كرا شرب الكبير بيت كل هاي. سورة ودي مقعدة ودي بكوجرة. وحين هن ولبا حكى بقينا بعدهن. هنا حما يسحجد كلا بدأ الدولة. حتى في الحرب سفارة حكي رسمي كهذا. سوت وحويا برين ننكر ووزير أبو قدومي قبل كبنادر هذا الموضوع على الشيء وح بترجمان أو قرابة. انت كل وديدين سومال اركين شركي برغا افريكا برشاد برغا افريكا هذا الموضوع دخ فديو سومالي سفع رسا خسن سوري زيادة اسغا هلاهي ساسو كلا لا ربا marka fiqi ma qancema iyo wasiirka fiqi iyo wasiirka qorsheynta iyo kan caafimaadka iyo gaashaandhiga ilma hayal hadina garaneen sida aadan madoobi ragi wax la barto maad luqadiina Soomaaliga ku hadashaan ayada turjumane سفارة سوسيال هذا هيبة يعني برنامج أدربته إنا نجارة هذاشان سفيا أيوة سومالي نوسو قد بيا أنا قاعد بدو شكارة إحنا قاعدين نلوت الجبل المهم بما اللي قلت جود ما يشوفه مركب وحيد هين ريجندي وحيس كلويهين إن لو ترشمه وإس كلويهين إن لو ترشمه وإس كلويهين وانقرت حدنا أو أنا تقول كلفه يصير نكن أسوي وزير وحديدين هاي إن لو ترجمه وديدين وانقرت كوبنا كلامنا وحو أسجنا هايستا أو سلية هاي ما قرنا يساعد يلقوا ترجم ذئب بحكاجو حين باقي كلامنا سفارة توتر لنا اسمه فهمينا وحلا لو حكى الله يعني مرة كورته فرحات عسي وحاب مسؤول كان لنا حمزة يحس شغل محمود أيها كان صدق معلم وده معلمة سيمت بكنا معلم سيمت ها هاي لغة عربي كذا ما لها يو واحد بريين يدوسي الحكمة يو وحكى له يحضر كوي عليه يو كي باقي ما يوحلا ده أحمد قريب عليه وحاسي وضع معلمين كهاي وحني أول هراء وحاش شجنا دت كباسة الدولة الأولى أو الدولة يدت كالصومالي بربص الهجامي كرماشي متشوجبة ماشي متشوجبة ماشي حسن بقول حسن معنوية تسير دل قول يسود دل الربعين عدو جامري لورا دجالهم دل بالله السهياتي حلو يمين باشا وحلو يمين يوم حلو أرسله الحي وكلا وانقرت إثيوبيا برنامج كسنية هو اللومني وبالعرب أنا أيضا كهذا ليه إثيوبيا وحيد باللوضي إني عشور كقاد مالي قومي أيشوت الصومالي بحيث تري بحالك كان أكون الدولة إثيوبيا إلى فضل هالك يا صومالي جديد هذا كان سلك استوى عندما إثيوبيا لين تدخل أكون خاص العقود ديان جديد في قبل هذا كل يمد أيام باش نجيب بوينت بالورد جاي سلك بالورد هذين أيام وحال الأكون قال عقد مدير العقد تسوي ترسل أول عايز توس عشور بيعيد مدى إثيوبيا توس باللعبين توس هذا توس باللعبين وأنا قالي تبلو بزوير للصومالي مايا وير العامبا إذا كان أيوه قرشي أن شيء إنهم بيوتشوغاني أو الصومالي إنه قبصداني واتنا ويكون باللعبين عشورتي إنه كقلام بيكون باللعبين هي سمد حلقة يا سمد أرض عن سوسار سمد ما عاد كسمد يو الحكمة يو يبغى يسيو وبح خير قبا وقومنا سوسار وكوا سفادك كليس دور قيمة بسوسار إن وكوحي كده دودين شر كونفورت الصومالي ما أنت تذكر قرحين هاي وانقرت
in kalena waa diirato waa diiratadan hadda maxaan ku dhahay Ethiopia u saashay in xataa ay gaadho bahash heer cashuur Soomaali gudaha ka qaaday ciyaari maxaad ciyaari jigjiga raadina waxa jigjiga stadium waxa ka socda ciyaaro koob iyo 10 gool baa loogu magac daray deegaanka Soomaalida waxa la qiimeeyay maalinkii cabdi laga saaray ilay cabdi ilay maalinkii deegaanka laga saaray iyo maanta halkuu jooga la qiimeeyay isbarbar dhig baa la sameeyay ciyaaro waqti ay dhici jireen iyo hadda يا بربرق لسمي ركب ولا سوق أتاه وريال وين عالمي سوق أتاه إثيوبيا وين بكحد الشيء حتى دولة إثيوبيا وين فارق الدين حساء يارو قلين وحلو هذا الدين كسومالي أنتوا يسبدل كوكر عاي إن القبيلة دوجا بقول كي سجاشن يسجال ينص بوينت 5 هنا جاني قبيلة واكو كلفوجاشات ضدكوا كلفوجادين واكو تسالم كوسو هذا يعني gobolada ugu daraaday qabyaalada waa qorraxay dooliya faafan qabyaalada number 1 bay galeen heer jigjiga waxay gaadhay ahwaanta dhaxda soo xidhaan ay isbalansaaraan caaw maanta meelweel asku nimaan si aan soo xulno timaas karafeena wees balansaar hada uga wad buraanburada maxaa kamid ah haday mid baan ka maqlahay ha buraanburi halkan ka buraanburi la qorraxay baan ku bilaabay qorraxay waxay ka bilowday Cabdillah kume Cabdillah kume bay ka bilaabeen qorraxay odaygii oo dhaday 1 milyan oo sano ka hor ayaa dhintay Ilaahay u naxariistay ayaa maartay ayaa soo akhriisanayaan oo loo yeedhayaa oo la leeyahay Cabdillah kume soo toos baa la leeyahay wardu qan Ilaahay u naxariistay moona yiri Cabdillah kume dhahay u duceeyaan ayaa leh tii qorraxay horta halkaas ay ku dhiiqadeen inta ka ku dhiiqdeen ayaa haweenku dhasa isu meeriyeen maya odayga meesha waa ka xanaaq maya odayga Allah u naxariistay maxaan ku dhahay waalidka maxay u soo toosinayaan hawsha soo akhriisanayaan tii qorraxay weyn la weydiyo inta wax kala la iman lahayn Cabdillah kume iyo garoonka la yimaadeen taa Mustafa ka xanaaq waa tan gabdhaha lagu mamnuucay inay yimaadaan garoonka waa waxa doon la yimid waxay dhaheen Suldaan Xaaji kume حاجي سلطان حاجي مكايل كمي أي يقولون لي مادين أيقولون دقوا يسوع آخر توزيين قبل كفافن بحر فافن بحر دولة دي بالعالم هو كده فافن وحي سميان حور في عام سميان هرت محيد الحاجة برامبركا بعدها بتكوير في عناد حاجة برامبركا وحيد هن جيجيا وواشنطن حقدر تعاوسا علمي أيضا برتو عشق بين ولي برامج ما فهمت لما كان فافراتكو بنمل اللي بيحيا فافرات واحد انا aan soo dhaweynay ya qaata billaah ka taagnayd marka brother ka halkaas mariyay ma fahantay marka cagreertii saa loogu baranburay qodhood way yaabeen bartamaha magaalada ay brother la istaageen marka waxa la yiri la barwan horta waa xagga qabyaalada la yiri faafan la barwan qabyaalada gashay qorraxay doolada wadoogeed ayuu waxmayna yaraysaneen arinta markay halka gaadhay dadkii deegaanka ka hadlay qabyaaladu waxa la arkay isku sheegtay haweenkii Soomaalida maqli jiray Muqdisho markay ciyaaro ka socdeen dawladda goboleed in qoliyo koonfur galbeed la cayrsaday qolihii habagiirta Muqdisho joogtay ay la soo ciyaartay ka bixin koonfur galbeed markay ciyaar jigjiisa looga dareerisay ciyaar soo dhamaato haweenkaas wadada isku wada qabsanayaan liibi booliska tigaas la cay qabyaalada herkii gaadhay halkaas ay maraysan Mustafa uu joojiyay markii ciyaarihii laba wuxuu yiri ma wax dumar ah laguma arkan ciyaar bab ay markaan totally mid kale waxa kale oo la yiri foolleydani horta wax la wixii foolleeyay meesha suuqay gaariya lagu soo daabulay gaariyadii baa laga keenay gaari lagu soo daabulay si ay u buraanburto tii buraanbur ugu taqaano dhan kuwa waxaad arkaysaa afteer laga keenay meesha ugu dambeysay mid kale waxa kale oo kaaga daraba lagu leeyahay foolleydii iyo kurigina waa saddex boodeen nin waxaan arkay afdeero la warqabta asaga buraanburay nin afdeera gabdhayntu dhax fadhiistay asaga buraanburay gabdhaha ka daba qaadayaan asaga buu gaaminay buraanburka waxaan ma aroosada mukeesi jiray garan maayo arooska baadiyaha ku buraanburi jiray marka baashan lama yaraysanin qabyaalada deegaanka boqolka boqol bay heer waxay gaadhay xaafadaha la kala xidho laakiin Mustafa waxaan leeyahay baasha wax ka qabo وكاس وقلت هرت اليوم بوليس يقولون الأمن وحيد هن هذا كذب قبلها وكم ممنوع كم سوق يبقى الكراه وحا وحخربينه
waa gabdhaha arinta kale meesha taal waxa weeye markii ciyaartu dhamaato wadadii weyneeda halbuulaha magaalada Jijjiga iyo qadha isaga saaray laba nag timis karfeen mid wajiga laga bedelay mid la rifay mid dhulka lagu jiiday wakaas hawshan halkaas ka dilaacday marka hada waa la joojiyay dumarkii hawshooda ninkii Mustafa soo xajinaya xajku aaday dadku is weydiiyeen Mustafa ma dhaqaale hor u haysta lacag deegaanka laga xajinaya هذا حق ودمده كفعناي ما حد كله horta war baa ku sheegay Mustafa kali ma xajinayo تماما dhan baa xajinay tamaam wax allaala wixii tadaamuna ee dawladda ku jiray iyo wax allaala wixii itixaad ah dawladda ku jiray iyo wax allaala wixii qandaraas la ah wax dhacay iyo wax allaala wixii wada kharibay lacagtu kharib ku soo gashay wixii dawladda xajka wada socdaan waan gartay doorka dawlad deegaanka Soomaalida waxa xajinaya maamulka iyo dadka odayaasha ee shacabka ee maxaan ku dhahay xoolahooda inta soo iibsadeen rabay xaj maqbuula inay magaranaysa xajiyaan waxa ka badan maamulka ya kootadii buuxiyay kootadii maamulkii baa buuxiyay iyo maamulka xigeenadii iyo dabadhoonkoodii iyo kii wixii baa wada buuxiyay wada xajinay شو وصلت وجود مثلا حلكه رئيس حجريه waxaan ila tahay inay sarf ugu dambeeyay tahay hadii lagaaga waramo mid ba meel la sheegay wuxuu ugu leeyahay ninkii hebel ah waxa jinaya hebel iyo waa dhalinyaradii waxa weeye kurayda yararka wax dhacay iyo kuwii kale madaxya kuusti wax ka hadhayba ma jirtaba wax ka hadhay ma jirto marka Mustafa yaa mindhaal hadda waxa weeyaan yaa hogaaminaya Mustafa hogaaminaya horta Mustafa waxaan isleeyahay horta qoladan kale xajku waa inuu yahay xaj maqbuul ah xajku waa inuu yahay xaj mabruuq xaj xoolo laga dhacay ummad masaakiina horta yani in Allah tayyib wala yaqbalu illa tayyiban وكاس إلهي ودي وح وناكسن إلهي وناكسن ما أقبل إلا وح وناكسن ويان حول أضم هذا فيري مدو حانر كي وحكش قيا وحب وزارة الشيء جمينة وحكش قيا مد كمل وزارة ده شنت وزارة دود وسري مد كمل يكش قيا وشنت وزارة فلنته وحال ده محن كده حول فلنته مايا وحال ده كويدا وزارة ده المقرنة يساي ده أنت بدل سيدا تبيرها يوحبر الشدة يوحف وي مد مكش قيا مرك لا يلحسوا كي قرية وخبير خبير داديه خبير متقنع خبير دواني خبير كدولة دجاج وحالة لها نينكا حبناها أوصل يدن كمامل وهوصل يدن كمامل كلا ده خبيركم نيكو خبير سوغاني جمي وخواني يغان فيما تاسمع حاجة هو قادن خبيركم وبوسك وير الدولة دجاج كالصومالي بقصة لغو قروي خبير هدول غدا بوسك وير وي مركا نيكا هو خبير ويا كودا ما يشاكله كده هو خبير وي gurigi toddobaad baan anu ku ogaa markuu sii dhisanay oo gurigi toddobaad oo mid walba ay ku baxday $200,000 Mareykanka marka dadka u fasiro waa khabiirka ugu yara jaamicigiina kaaga daranta khabiirkaasi sanad walba uu xajiyaa xajo xalqa $200 xalaadna uu ka iibsaday oo daaqas safkana masaajidka uu kugu ciliya saa kaaga horeeyay safka masaajidkana isaa kaaga horeeyay uu kugu ciliya sanad walba uu soo xajiyaa واجد marka horta waxaan waa waxaas anigu Mustafa ma garanayo markuu hay'adda u shaqeynay lacag fiican buu qaadan jiray halka wax uu ka urursaday Mustafa waagi hay'ad shaqaalaha mushaar uu maanta ka xajiya mar way mushaarkiisu waa $16,000 waa $130 mushaarkiisu wuxuu xajiyo inta madaxweynaha kor mushaar lacagta dadka uu dhacay ku xajin mushaarka madaxweynuhu waa $16,000 دستوريهان ها شارك حق وله وي $130 وي $130 اللي عجز المال عارق زوير كم حجين كره marka quraacisa dhanaan quraacisa ma badana haduu marka Mustafa ka xajiyay xoolihii hore ee hay'adda ka urursaday kuwaas waa xalaal ileen waxa weeyaan waqti shaqaalo dhiidkiisu cunay waqti period oo go'an baad soo gashay waqti go'an baad ka bixi jirtay taas waa xalaal weey Mustafa waa u fadiyoonaynaa mugta وفضوانينا تاس وحلال وي لكن حولها كلا الدولة ديان كالصومالي المدحدة كل نقطة هذا كحجينيو وحويانا دي مكة iyo مدينة ويسoo baran karaan sida kuwa kale hadda kuus ordahayaba Maka iyo Madiina iyo wada xiis baan u aragnaa rag darbijiifka soo xajinay xiis baan u aragnaa waxaan arkay mid wadaadada cusub oo bari dhexda ah u fadwooday
وفضوضه ku haya lacagta xaraanta waa laga xajin karaa oo barbaraawi ay dhahaan maartay reer Hargeysa waa laga xajin karaa barbaraawi waa la yiraahdaa waa reer Hargeysa wuxuu yiri lacag hadaad soo dhacdo waad ku xajin kartaa ma lacag soo dhacday waan gartay wadaadka horta ma taqaana barbaraawi waan maqleen barbaraawi waa wadaadkaas Hargeysa fadhiya waan gartay waa ictisaam ya maswa salaf ma aqaan waxa sooy wuxuu yiri xoolaha aad soo dhacday waad ku xajin kartaa ma garatay waan gartay marka madal wadaadkaas u fajooday baan u malayno kaas sheekh wada show dawlad deegaanka idilba xaqiiba ku soo qulqulayaan xajka ku soo qulqulayaan guriga gabagaba maxal ah guriga gabagaba waxa leeyahay horta dadka deegaanka Soomaaliya way mahadsan yihiin sida xogahna waa u xidhan waxaan dawaataa annagu idiga inay shaqeynaa xogta rasmiga inay inoo soo gudbino ayaan diyaarno 24 saac u taaganna sababtoo kuwa wax ma garata ah oo xaqini iyo xuquuqdiiniba lumiyay ayaan rabnaa inaan farta ku fiiqno hawshii aan barnaamijkeena ku bilownay gafaydho meesha aan ku tilmaanay inta dhageysato aadin arabta xaafada aad iyo aad buu maasay daawadayaal xubinteena faaqida daymaha ayaynu ku gunaanadaynaa intaynu dib dambe ugu kulmi doonaa mid kan mid lamid ah waxaanu kaga tageynaa sida iyo